halkan waa Muqdisho Soomaaliya oo aad kala socotaan BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya kaasoo hawada si toos aad uga dhageysanaysaan. maanta oo maalin Jimco ah taariikhda milaadiguna tahay 3 bisha Juun ee 2016 taariikhda hijriguna ay ku beegan tahay 27 bisha 8 ee Shacbaan 1437 waxaad ku soo dhawaataan warkii saacadlaha. wadahadalo looga hadlayo sidii loo dhexdhexaadin lahaa Falastiin iyo Israa'iil oo muddo badan colaad dhextaalay ayaa waxa ay ka bilaaban doonaan magaalada Paris ee caasimadda waddanka Faransiiska. wararka ka soo baxaya kulankani maanta bilaaban doona ayaa sheegaya in aysan ka soo qaybgali doonin mas'uuliyiinta Falastiin iyo Israa'iil. kulankani ayaa imaanaya kadib markii uu madaxweynaha Faransiiska ka dhawaajiyay in ay sameyn doonaan wadahadalkani asigoona sidoo kale ku gacan saaray ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo doonayay in uu wadahadal toos ah la yeesho mas'uuliyiinta Falastiin. waxa ayna wararku sheegayaan in wadahadalkani ay filayaan inay ka soo baxdo xal u dhaxeeya labada dal. wararka naga soo gaaraya waddanka Liibiya ayaa sheegaya in xeebaha Liibiya laga helay meydad badan kuwaasoo lagu sheegay in ay ahaayeen tahriibayaal. wararka ka soo baxaya meydadkani laga helay xeebaha Liibiya ayaa sheegaya in ay tiro ahaan ahaayeen 85 ruux iyadoona aan warkaasi la xaqiijin. wali halka aad nagala socotaan waa BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. Hillary Clinton oo ah musharax u taagan xilka madaxweynenimo ee waddanka Mareykanka ayaa sheegtay in Donald Trump oo isna ah musharax u taagan xilka madaxweynenimo ee waddanka Mareykanka aysan suurtagal ahayn inuu madaxweyne ka noqdo Mareykanka iyadoo sheegtay in ninkani uu yahay nin aan fahansaneyn siyaasadda Mareykanka iyo siyaasadda caalamka. Hillary Clinton oo khudbo ka jeedisay magaalada San Diego ayaa khudbadeedii ku sheegtay in Mr. Trump aan marna lagu aamini karin nambarsideedyada ee Nukleerka waddankaasi ayadoona sheegtay in ninkan uusan ehel u ahayn arrintaasi uusan khibrad ku filan haysanin. sidoo kale Clinton ayaa sheegtay inay sameynayso wax kasta oo suurtagal ah sidii ay ninkan uga hortagi lahayd in uu noqdo madaxweynaha waddanka Mareykanka ayadoona sheegtay in ninkan hadduu madaxweyne ka noqdo waddankaasi Mareykanka uu halis gelin doono. Hillary Clinton ayaa hadaladeedii ku soo gabagabaysay in doorashada Mareykanka ka dhici doonto sanadkani ay u dhaxayn doonto Mareykan oo cabsi gala iyo Mareykan oo kalsooni hela. wararka ka imaanaya waddanka Faransiiska ayaa sheegaya in ay ku dhimatay haweeney 86 jir ah fatahaado uu sameeyay webiga Seine. fatahaadahani uu sameeyay webiga Seine ayaa khasaare badan ka geystay waddanka Faransiiska iyo waddanka Jarmalka iyadoo ay wararku sidoo kale sheegayaan in Jarmalka ay ku dhimatay 3 qof kuwaasi oo uu biyaha webiga fatahay ugu galay guriyihii ay degnaayeen. sidoo kale kooxaha gurmadka ee labada dal ayaa ku dadaalaya sidii ay u badbaadin lahaayeen dadka uu saameynta ku yeeshay webigaasi. khubarada saadaasha hawada ayaa iyagana sheegay inay ka cabsi qabaan maalmaha soo socda inay ziyaadaan fatahaadahani uu sameeyay webigani. wali halka aad nagala socotaan waa BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. wararka ka imaanaya magaalada Xalab ee waddanka Suuriya ayaa sheegaya in magaaladaasi lagu dilay 19 ruux oo rayid ah oo ay ku jireen 6 caruur. duqeymo dhanka cirka ah oo ay dowladda waddankaasi ee u hogaamiyo Bashar al-Assad ay ka sameysay magaaladaasi. sidoo kale wararka ka soo baxaya magaaladani ayaa sheegaya in uu sare u kac ballaaran uu ku yimaaday qiimihii magaalada la kala siisan jiray cuntooyinka daruuriga ah. qiimo kororkani ayaa lagu sababeeyay duqeymaha magaalada Xalab oo 5 maalmood ugu dambeysay ahaa joogto.
mas-uuliyiin iyo madax ka soo jeeda waddanka Mareykanka oo khatar ka muujiyay in Donald Trump uu noqdo madaxweynaha waddanka Mareykanka. mas-uuliyiintani ayaa sheegay in Donald Trump hadduu madaxweyne ka noqdo waddanka Mareykanka ay ka cabsi qabaan in uu abuuro rabshado, ayagoona sheegay in shacabka waddankaasi ay ka taxadiraan qofka ay dooranayaan. mas-uuliyiinta ka soo jeeda Mareykanka oo cambaarayay doorashada Mr. Trump ayaa diiday in magacyadoodii loo adeegsado warbaahinta, ayagoona sheegay in ninkani doorashadiisii laga yaabo in ay sababto dagaalo sokeeye. Yamato Tanuka oo ah canug 7 jir ah oo u dhashay dalka Japan ayaa waxa ay wararku sheegayaan in labadiisii waalid ay ku soo tuureen meel duur ah oo aad uga fog magaalada. labada waalid dhalay wiilkani ayaa sheegaya in wiilkoodii ay ku soo tuureen meel ka fog magaalada oo duur ah, ayagoona sheegay in sababta ay ugu soo tuureen ay tahay in wiilkani ay edebtiisii xumayd. wararka ayaa sheegaya in wiilkani 7 jirka uu ku noolaa meel ka fog magaalada 6 maalmood, ayadoona ay markii dambe ay soo heleen ciidanka militariga waddankaasi. waxaana intaas inoogu dhammaaday warkii saacadlaha oo aad kala socoteen BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. ciduu dhaafana waxa ay dib uga heli kartaa barta aynu ku leenahay internetka oo ah www.bss-somalia.com.